Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha garbeyga oo kusoo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarka bulshada aniga waxaan ahay Xafsa YouTube-ka naga daawanaysan Xafsa channel ala barnaamijkan waxaan idin soo gudbisaa islaaniga walaashin Xafsayd soo dhawaada meel walba aad joogtaan waxaan Allah subxaanahu wa tacaala idinka baryaa cimri dheer cibaado subayno Allah idin siiyo insha Allah waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan aniga waan fiicanahay alxamdulillaah waxay inoo soo socday kitaabkeena imtixaanaha ee la magac baxay baro 100 xadiis hase yeeshee intaan u gudgalin darsigeena maanta ugu horeeyaan haddii ay tahay marka ugu horeysa channelka soo booqtay fadlan subscribe saar haddii aad hore noo joogtaan like saar oo share gareey asxaabtaada nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo oo walaalkaaga kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeena 49aad بسم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه نبينا نودجلين حريص كركي ساعته وحده إذا أقيمت الصلاة هذه الصلاة لو أقيموا فلا صلاة إلا المكتوبة الصلاة مجرت إلا مد واجب كما هي يعني أذو كجر الصلاة سنة oo maraysa tarkacada koowaad camal salaada waajibkan loo taagan yahay loo akhrimaad ka bixisa waxaad aadaysaa salaada waajibka ah haddii aad maraysana ataxiyaadkii meelahaas oo aad ka gaarsiin kartane waad ka gaarsiinaysaa laakiin sunnada hadday tahay midda koowaad waad ka bixaysaa laanahu malo ogolo adoo salaad waajib loo taagan yahay inaad sunno ku mashquusho maxaa yeelay waxaa la dhahay idaa uqiimati salaatu haddii salaad loo aqimo falaa salaata ila almaktuuba salaad ma jirto ilaa midda waajibka oo loo taagan yahay markaas loo akhrimayo maahe insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahmi doontaan asxaabtayda qaaliga guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawashada muuqaalkayga waad ku mahadsantahay haddii aad subscribe saartay haddii aad hore noo joogtaan la sii wadaag asxaabtaada waad ku mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu